waxaan ka hadlayaa xadhigga lagula kacay wariye cali xajar oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Saylac ee xarunta gobolka Sanaag. xadhiggaas oo ahaa mid aan loo marin sharciyada laguna soo qaban hab sharci waxaan sheegayaa oo tilmaamayaa inay ahayd tacaddi lagula kacay wariyahaas meel ka dhacna ku ah sharafta iyo xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda. waana ka xunnahay xadhig noocaas in loo geysto wariye ka howlgala gobolka Sanaag oo loo yahay weliba marxaladda iyo xaaladdu ku shaqeeyay noocay tahay maadaama uu gobolku yahay mid kulayla runtiina waa mid aan ka xunnahay. waxaana ka codsanaynaa maamulka waxaana ka codsanaynaa Somaliland iyo mas'uuliyiinta ururka saxafiyiinta Somaliland in laga hadlo sababta keenta xadhigga wariyahaas iyo waxa uu Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan maanta halkan u fadhinaa anagoo ah warbaahintii gobolka Awdal xadhig sharci darro oo sifo sharci darro loo maray oo lagula kacay wariye Cali Xajar oo kamid ahaa warbaahinta gobolka Sanaag. arintaasi lagu xiray oo ahayd mid uu xaqiiqada ka sheegay. haddii xaqiiqada la isku xirayna iminka laga bilaabo anagu ka warbaahin gobolka ahaan waanu ka tashan doonaa arrinkaasi. waxaan u baaq adag u direynaa xukuumadda Somaliland inay xorriyadiisa si degdeg ah ugu soo celiso wariyahaasi oo ka hadlay wixii sharciga ku dheehnaa. wuxuuna ka soo weydiiyey qodobadii loo baahnaa sharcigaas iyo sida warka ahaydba uu maray ninkaasi, laakiin sida loo xiray anagu ka warbaahinaan aad iyo aad baan u xambaaraynaa waan ka xunahay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. magacaygu waa Saadaan Maxamed Aqli oo ka tirsan warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal. waxaan dhammaantay warbaahinta gobolka Awdal aad uga xunahay xadhigga loo geystay wariye Xajar oo ka howlgala gobolka Sanaag. waxaan leenahay ururka Soldier oo aad u cambaaraynayna oo moodo ururka Soldier kaliya inuu ka shaqeeyo warbaahinta gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa isagoo aan marnaba ka hadal warbaahinta lagu xiro gobolka Awdal iyo kuwa Sanaagba. waxaan leenahay xukuumaddu xadhigga wariye Xajar inay u eegto hoos u eegto lana sii daayo xorriyadiisa dib loogu soo celiyo. waxaan ka hadlayaa xadhigga lagula kacay wariye Cali Xajar oo kamid ah warbaahinta gobolka Sanaag. maamulka Hargeysa iyo qolada Hargeysa joogtay waa dambiilayaal weeyaan sababtoo ah Cali Xajar laaluush qaada ay ku dhahdeen oo inay laaluush siiyaan oo wadankiisa ay يعني وكيبسدو ده جبوت ولا جواي عيد الله يرحمه معلنتها جبوت ولا جواي تيسير البلد دونتي ده علي مركا وحصار كحقيقة إن ركب باب لقوا هيو درتير هو 40 قسمية هو واحد يريد 40 قسمة وأنا كحنا حرق لقول لك على حجر صورته واحد يراه هذا لما جرتوا مشوا أرجسكم كمان هاي قلبيتكم قرب سمسان دونان أيوة كتشان دونان أبي الله يراه ورق وكجوستمر هراء مركا هرجسون يجوا أسكسو كم نادان وريا عشان حرق لقول لك عيوة تعدي وظلمي ويعني واحد ضرر لقوا هيو شعب قبل هذا قلبيتك فضلا حرية السلوى السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. وحا يندرا إنه مالتي لبعتي عقدرا كحرية علي حجر وكاو قلقوا بالكسلل وحان لنا هو يندرا إنه لا يرحضو قف كرنتها الشيء لا لوش قاضو إنك فيصل مقفل لا يرحضه ماشي هايستا دتك هدولي هيدا إنه يذكرنا وحبوها هي حلنا وان هي وان كنت عادية شقين ما يسرنتها على الشيء عيد الله قرنا ينا حق على الشيء إن كون صولش للي هنا لأنه صولش من نقانة ملها إن أنت واحد كشقي ساون أرجيسي واحد برجوا رجاستن سو شيء إنه حنا ما نتشن دونا إن مكوا عنكم بدو ترنا شاعرتي إن أورو كيجا وأنا شاعر دونا وحنا لنا سيدك دقة حرية سالوجو سعودية ونادي هذا هم باريننا حرق اللقولك عي وري علي حجر وكمده warbaahinta gobolka Sanaag kaasi oo lagu xiray sifo sharci darro balse ay tani maanta taagan tahay oo ah ha sheegin xaqiiqada dhabta ee taagan ma ahana wariyaha in la afduubo wariyaha shaqadiisu waxa weeyaan wax kasta oo xaqiiqa in xaqiiqadu waxay tahay uu ka sheego علي حجر hadda waxa lagu xiray sida nagu maqaalaa ama cad ciida dooxa bariisle ee la geeyay dalka Djibouti war dalba iskale Soomaaliland la yiraahdo ciidan leh وما حد من الرعانة يدي حملانة كجرتها سومالا محيط إن عيد هذا القاضي ضل كله لوجي ضل سومالا الله يرضى على محل أنا عيدني سيدا الله قاد أنا حجروا جزء سيء إنه حقيقة كشجوا عيد يقول كسر الهاي محل أنا سومالا ندرك جوتي لقيه تحسن على وحده وحلي خير حوتنا يرضى محل أنا عنصرقة
nin cunsuri inuu yahay baan u aqoonsan sababta uga hadli waayay ilaa hadda maxay tahay wali xarig maxadan cali xajar waxa ku jirta haybnimo nacayb waxa ku jirta cunsurinimo islaama ku yar xidhay buu maalin oo leeyahay lehay nin maxadan lagu haysto ciidii dalkiisa la qaadanayo xaqiiqada dhabta ka sheegayna kama hadlayn waxaan ku aqoonsanahay anigu inaad tahay cunsuriga ugu weyn mar labaad iyo mar saddexaad baad ka hadlaysay weligaas xaafadan bana shaqo dambe ku yeelan maysid waanaanu ka tirtirayna sidii walaalahay hore soo sheegayna waxaanu ku dhawaaqaynaa urur aanu aayahayaga kaga tashano haddaanu nahay galbeedka Soomaaliya waxaan leenahay xadhiga wariye cali xajar oo ka howlgala magaalada Sayrac oo la shaqeeya mid ka mid ah telefishinada Soomaaliga ee caalamiga xadhigiisaasi xaqiiqiyan marka la eego xagga xeerka iyo xagga caamka midnaba sal iyo raad toona kuma laha wax yani gar looga leeyahay lagu xidhay wariyahaasi waxay ahayd haddii uu dembi sameeyay inta loo yeedho la hor keeno maxkamadda la yiraahdo war ciidaasi la gurayo dalka Djibouti loo gurayo inaad dadka u sheegto waad ku khaldan tahay in la yiraahdo markii la askareeyay ciidaasi dalka Djibouti Djibouti loo dhoofiyaa waxay ku fadhidaa kharash dhan $1 milyan oo sanadkii iyadoo dadka deegaanku ay cabanayaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda macdanta aanay waxba u qabanaynin sidaa darteed annaga ma aha shaqadayada in dawladda maxay wax ku qaban weydiiyay inay wax u qabatay inaan nidhaahno midna ma mana aha inaan annagu u doodayno cali xajar oo noona laakiin waxa sheegaynaa oo aan ku taaganahay xaqa ah in la ixtiraamo xorriyadu qowlka iyo saxaafadda oo xaqiiqada taagan ee la soo tabinayo dee bulshada mas'uulga yihiin ninkani waajib u gudanayaa hatta hadduu gacantaada ku dhinto xabsiga ku dhinto adiga yani dee ninka xidhay isaga khasaaro ugu sugan dhowtoon marka waxaan sheegaynaa bal cidii arinka yani wax ka qaban karta ee mas'uuliyadda ama dawladda ama cidii kale inay horta si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celiso dhinaca kalena ma aha mid naga hadhaysa guud ahaan baadanaay baada saxaafadda isku duuban annagu ma diidanin in la xidho markaa khaldano si kalena loo ciqaabana ma diidanin laakiin inta xaqiiqada bulshada ka daahsoona soo bandhigayno haddii lagu sii jiro in maalinba kaasi la soo xidho arintaasi cawaaqib xumo kale hadhow leedahay oo cidda xidhaysa ku leedahay taana ha la ogaado waxaan halkan ka hadlaynaa inaan maanta aan Saciid Xajar oo lagu xidhay Sayrac oo geeyay maalintii labaad waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland Maxamed Siiraayo waxaan leenahay Saciid Xajar la soo siiyay xadhigiisa waa xaq daro waxa lagu xidhay Saciid Xajar